بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhiganaa casharkeennii taxanaha waan soo fahnay kuwa dharantii 1 kuwa dharantii 2 kuwa dharantii 4 waaxda koowaad waaxda labaad iyo waaxda saddexaad iyo waaxda afraad iyo coordinate plan hadda waxaan bilaabayaa distance equation between two lines baan bilaabayaa waxaan noogu xigi doonaa insha Allah equation line iyo parallel iyo perpendicular waxa la dhaho marka hore distance-ga aan faano intaad meeshan ku aragto waa distance-gii qaacidadeedii iyo qaabkeedii weji iyadoo si fiican ayaan u qeexayaa u fiirso qaacidooyinkan waa labadan qaacido midna waa mid pointiga midna waxa weeye waa distance-gii marka waxaan bilaabo haddii iminka la siiyo b1 intaasaa la siiyo d waa distance-gii maxaan dhahayaa x2 minus x1 square plus baan dhahayaa y2 minus y1 square intaas waa qaacidadiisa distance between weji waa formuladiisi marka x tobanka maxaa la siiyaa hal baan haystaa y1 na labaan haystaa ayay b2 dana maxaan dhihi x2 maxaan haystaa 4 y2 maxaan haystaa 6 marka fiirso d maxaan dhihi waxaan dhahayaa radical baan dhahayaa 4 minus 1 baan dhahayaa square plus 6 minus 2 baan dhahayaa square kabacdi waxaan haystaa xaggan waa 3 each pair loo geeyey xaggana waa 4 each pair kabacdi maxay soo bixi haddaan jibaaro waa 9 loo geeyey 6 iyo 10 kabacdi maxay noqoni radical 5 iyo 20 bay noqonaysaa marka radicalku inuu ka bixi 5 marka 5 baan helay distance between two line 5 baan soo saaray qaab kalena waan soo saaray oo fiirso graafka markaan sawirayo qaab kalena oo pythagoraniya u fiirso markaan graafka sawirayo waa si aan u faahno casharkan ayaan intii hore oo dhaca graafka aan soo badiyay ahayd markaan saa u jeexo waxaan dhahayaa marka ugu horeysa 4 baan jeexanayaa waayo x2 waa 4 ka kalena y2 waa 6 baan jeexanay 6 baan dhihi 6 ka kale b1 kana x1 ku waa 1 y-duna waa 2 halkaasi marka labadooda halkaasi iska gooyeen anagii casharkeennii hore soo dhiganay waa b1 b2 haddaan dhahana 4 baan qoraya halkaa xaggaana waa 6 marka sidaasuu u go'ayaa ku fiirso halkaasuu marayaa kabacdi waa b2 kaasi xagga 6da ay taalo waa arkaysaa kabacdi waan soo yaro durqayaa 4tan dul keenaya waan soo jeexayaa saasuu noqonayaa waa barta iska gooyeen baa intaa la dhahaa marka haddaad u fiirsato haddaan qaab kale uga shaqeeyo qaab kale xitaa waad uga shaqeyn kartaa oo pythagoraniya oo hypoton adjacent iyo opposite-kii waan isticmaali karayaa haddaan xaggana 3 siiyo halkaana 4 siiyo 3 iyo 4 baan soo helo labadooda waan jibaaray hayde u fiirso kan waa a kan waa b kan waa c waa adjacent opposite hypoton eeda 3 baan haystay kana intaasaan haystay isku waxbay soo baxayaan qaacidadu maxay ahayd a square plus b square haye eeda marka waxaan dhahayaa waa 3 la jibaaray oo loo geeyey 4 la jibaaray waxaan helayaa waa 9 loo geeyey 6 iyo 10 waxaan helay 5 iyo 20 dhan kasta radical c maxaan helay 5 isku waxba ii soo baxeen adiga arkaya qaabkan waa looga shaqeyn karaa micnihi waa markaad ka soo shaqeyso marka distance between two line waa maxayna waa 5 waa intaa weji u dhaxaysa labada point weji labadan xayaanay graafka su'aashan kalena u fiirso intan ayaa la siiyey p1 maxaa la siiyey minus 3 iyo 4 p2 na 9 minus 1 baa la siiyey maxaan naqaanaa maxayna inuu aan distance between two line inuu qaacido leeyahay qaacidadaasaan isticmaalnaa marka u fiirso waxaan dhihi d is equal to radicalkii baan furan kaasi waa x1 kana waa y2 y1 baan ujeedaa kana waa x2 kana waa x y2 kabacdi qaacidadii distance-ga ayaan qoranayaa radical baan dhahayaa x2 minus x1 square plus y2 minus y1 ayaan dhahayaa marka maxaan dhihi waa 9 waxaan dhahayaa waa 9 minus haddana 9 minus iyo minus kaloo 3 ila minus buu wataa 3 square baan dhahayaa loo geeyey minus 1 baan dhahayaa
minus 5 yani 4 baan u jeedaa kabacdi minus times minus waa plus marka labadaas way isku dhacayaan 3 u gee 9 waa 12 la jibaaray marka 12 la jibaaraan dhahaya 12 la jibaaray labadana minus times minus plus hal u gee 4 waa 5 maxaa dhacayanay maxaan dhihi minus 5 square baan dhahaya kabacdi marka inta ay soo baxdo wii jibaarin waa 144 kana haddaan jibaaro even yahay minusku ka baxaya waa 25 baan dhahaya markuu even yahay uu ka baxaa kabacdi waan isku geynayaa waxay noqon 169 waan ka saaraya haddana maxaan helay 13 marka distance between two line waa inta waad fahantaan u maleynaya halkan waa real maths private school oo leh insha Allah qaab aad iyo aad u fudud ay u fahmi doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ta'ala